waxaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan weerar loo adeegsaday ruux ee walxaha qarxa watay oo ka dhacay xerada tababarka ciidamada Turkisom waxaana la sheegay in ay halka ku sugnaayeen macallimiin u dhalatay dalka Turkiga iyo kuwa Soomaali ah. ruuxa jaakada watay walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa waxaa la sheegay inuu dhex galay dhalinyaro loo xareynayay tababar ciidan oo ku sugnaa afafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee Turkisom. askarta dawladda ee ilaalada ka haysa xerada ayaa ka shakiyay ruuxan oo la sheegay inuu dhaqdhaqaaqyo badan ka sameeyay halka waxaana jiray khasaare ka dhashay inkastoo aan la ogaan karin khasaaraha dhabta uu gaarsiisan yahay weerarkaasi. xeradan ayaa waxaa markaasi hore ugu soo baxay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ku xareysan rag iyo dumar u badan dhalinyaro kuwa oo loo tababarayo in ay ku biiraan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale weerarkan ayaa waxa uu durbaba sheegtay xarakada Al-Shabaab oo markaasi lagu bartay in weerarada noocan oo kala ay sheegtaan. waxaana sidoo kale weerarkani ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawa Yuusuf Raagi waxa uuna taliyaha ugu horeen uu sheegay in ciidanka amniga ay toogteen ninkii doonayay in isku qarxiyo dhalinyaro ku biiraya ciidamada xoogga dalka oo tababar loo furayo. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu xusay khasaaraha ka dhashay qaraxa 2 qof oo uu 3 ku yahay ninka la toogtay ayaa ku dhinteen waxaana uu sheegay in ay jiraan dhaawacyo ka dhashay qaraxa. si kastaba ahaatee waxaa marar badan ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho ee duleedkeedaba weeraro ay geystaan xarakada Al-Shabaab